أنا دابا نسمع مقالباية دم قتيبي وفريسة وتقتلانية مقال فرنسا ورك جرون كشك ما نتعقص قادنا بشيء تاي سيديد بشي شراد لبات سدح ورك جرون كشك وحنا بقى نقص قاتنا مدحويني يقولي أفريقيان أو نظام عصب أو لسكو حكمه ليمين مدحوينها وحسن شيخ محمود وهو كاني نظام عصب أو دولي أو أسيق أوغار أو ربو إنه أمتن أو الصوماليات الدولة إنه كهجاميو أسيق أو إنه ليه هاي قال الشعب أسيق أو إنه ليه هاي أقل كسر أسيق أو إنه ليه هاي رئيس الوزراء وزارة شقيسو أو فلان تقابل سن أسيق أو إنه يهاي نكى شرع قاس إنه إلى الربي أيو نظام عصب أو ودنا لو حكومة كان أيو كاني مركب حورت إسويدن وباهن حورت الدولة دا وحكومنا أو لو ذا ليه هميا بس الدولة دا هر شخصي عسكري دولة دا هذه حكومة أو لو ذا ليه هاي وحال ربا فاكتور كيك كوبان تاعي أو لن إلا أركي كرو لدريمي كرو هذا الكماش أو كصباحه يمشوا هذا الأوجيه لكن هديت هاي أرين أو نن هل نن أو بورصة تولسكي دولة دون أو كوسيتو أو جمعها مركو مساجد ماذو تولسكي سي لصباحها يودها يصانا يلينا كان يلينا وحولسان صوتنا إذا وزاردي فلنت إسكالهاد وحاس وحبا إيكو أوغين كل شعبك وحبا إينك أوغين أنقل كيسان وحبا إينك أوغين أيو مركزتو أيو إنو مسجد يمادو أو حسن شيخ فرين مكا صوفرها وحبدنا نشيغني لكن كصورة قال إلى هذا ملي مجرو برلمان بس قول الشعب إنه فريستو وحان كوكوما سمي كالي حدها هاينا مجران ساس دراديد حسن وحو مغدا نين دولد يودن أسيغا هل بورسو قوتو سيدو ربا قيلايو تاسنا قلديدا كإيمانايو وواح اسكعد أي عد كستو داوا كرتو أي أركي كرتو هذا مالي هوري جمعيه لسو دافي مركو كهدلي بونتلان ولا قصد وقتمي هذا لبضن أيها كصوب بحين حتى مدحوينا وحلو بها وحيالا أو كهد لايو إنه أسكا كنترولو محايلي هدو ورقد وحير إنه كسو قرطو وميل لسو استاقايو أسيو الدولة دي المثلايو وحرم إنه شيغو بريتنا وحو مدحويني شيغو ودستوري واي اللي يرادو أولا قاتو ووح dhibaato abuuri karo dhibaatana keeni karo oo haddana dhibaatada keeniba hadda maanta waxaa hadleen odayaal mudug dhinaca mudug ka hadlay waxay sheegeen warar aad iyo aad u wanaagsan ayagoo cidna u gafin cidna caynin dadkay dadnimada ku yaqaaneen dadnimada ku tilmaamay ayay hadleen bal nala dhageysta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد وعن قلبت شركة شرائد وقبني أنه عقال رير مدوغة والكان شوكته وركي حسن شيخ مدحوينها الصومالية وكاها الله مسجد كي خطبتي وكتشيدي ولا سوها الله reer Puntland oo hadalladaas ay ka mid ahaayeen 24 sano jidhay 24 saac ay burburin madaxweyne Deniyowna joog oo wax ayan rabin hamarsiinin hadalkaas horta wuxuu ahaa waxay ku jirtaa riwaayadaha ku jirtaayo heesaha ku jirtaa raad gadasho waa baa la yiraahdaa hadalku markuu meel u socdo meel kalena loo ekaysiyo raad gadasha la yiraahdaa hadalkaasi marka sida uu u muujiyay madaxweynuhu ma ahayn macnihiisu marka sidaa darteed aan rabnaa inaan ka jawaabno waxaanu leenahay madaxweyne
adiga waxa kuu baahan oo wax qabadkaaga laga sugahayo oo Puntland ay kaaga baahan tahay ma aha meesha tilmaantay deni waxa u dhiibtay dadka meesha jooga xilka u dhiibay dadkii xilka u dhiibayna way joogaan dad loo tilmaamayo maslaxadoodana ma aha haddii ay dantooda ka arkaanna waa ku celinayaan hadday dantooda ka arkaanna way iska dirahayaan sidii horey bay u yeeli jireen marka dadka meeshan jooga dad deni u daneeyana ma aha dad xasan shiikh u daneynayana ma aha waa dad dadkooda iyo dalkooda iyo dantooda u daneynaya horta taasi waa midda labaad adigu nasteexada hadda aadna tusaysid waa kugu leenahay xaq baan kugu leenahay laakiin waxaan isleenahay madaxweynaha dhowr arrimood markii la fiiriyo nasteexada iyo waxqabadka ay sool kaa weyday oo gada kaa weyday oo sanadkii horeeto oo aad haysay mudug wixii ay kaa soo gaaray waad ka warqabtaayoo waxa idin dhex maray waa isla ognahay oday weynu si waxoogaya waxuma sheego laakiin waa inoo tirsanto waynu isla ognahay intaasi wanaagga ay kaa weyday iyo ay kaa weyday waxqabadka ay kaa weyday Puntland hadda inta hanqalka u taagto madaxweynaha ka sugayna horta oran mayno taasina waa sidaas waxaan ku darahayaa madaxweyne intii aad joogtay tallaabooyinka aad qaaday hadday heshiisyada ajnabiga tahay iyo hadday heshiiska dalka tahay iyo hadday magacowga tahay iyo hadday safarada baxay tahay iyo hadday meelaha aad waxa weeye kama muuqato dheehii dawladdu midabka ilaahan jirtay intaa midna kama muuqato waxaan kuu soo jeedinaynaa madaxweynaha iyagii baa tahay oo waa kuu baahannahay haddaad habowdinna waxaa la yidhi gurigayagii iyo arka lagama xishoodo soo noqo diyaar baan kuu nahay wixii khaldamay inaan saxno caano daatay dabadoodaa la qabtaaye marka adigana intaasaan ku leeyahay reerkan xulufada ahaan jiray oo abgaalna waxaan leeyahay abgaal waxa weeye dad soomaalinimo ku tilmaamanoo wadaniyeed ku tilmaamanoo aqoon badan ku tilmaamanoo weliba xulufo gaara annagu aan siinahay weeye war madaxweynuhu hadduu bahasha la sambiriiriqday dhinaca qabta waa la toosiyaayoo dhinaca qabta idinkana intaasaan idin leeyahay aniga wax badan ayaan ka taliyey madaxweynaha inuu iska dhaafo in masjidka ku yaala madaxtooyada ee la yiraahdo masjid shuhadaa oo u tago inuu jimcada ku guto inay ku ekaato kaliya inuu salaadaas jimcaha ku guto wixii wadankan duca loo duceeyo kan loogu duceeyo wixii wanaagsan oo leesfar kan leesfaro laakiin ay naqanin masjidka in looga hadlo politika siyaasad masjid iyo siyaasad shaqa iskuma laha siyaasa waa been siyaasa waxba aan kala qaadano waaye anigoo og dadka meeshaas iskugu imaanaya masjidka aynan u imaanaynin inay ilaahay ay ku caabudaan mase ay dembi isaga dhaqaana ay u imaanayaan nin la arka ninka kale arrimihii uu ka lahay inuu ku oofsado anigoo iska og laakiin ninka markuu masjidkaa galo gurigii ilaahay ayuu galay waa inuu ammaan ku helaa marka gurigii ilaahay in laga soo gamuuno waa ceeb midda kale waxaan rabaa xasan shiikh hal kelmad inaa iraahdo kelmadda aan dhahay waxa waaye lacalla waxaad aragtay nin sigaar cabaayo oo u shidan yahay ninkaas sigaarka cabaayo ninaa u yimid sigaaroo soo baxsaday waa shitay ninkii sigaarka cabaayo wuxuu waraa sigaarkaas urkiisa idhibaaya iga dami sigaarkaas aashida urkiisa waa idhibaa iga dami asigana muxuu cabooyaa sigaaruu cabooyaa hadda adiga maalin hore masaajidka khudbadii aad ka jeedisay waa noocaas madaxweyne xasan waxaan kuu sheegaa waa noocaas waa ninkii asagoo sigaar cabaaya ninkii kaloo sigaar ka cabaaya dhahay sigaarkaada dami ha igu cabin waa uraa
ونوعاس هورن وكو إري ننك مركو نظيف يهي أيو وح نظيف كرا أيو ننا وح كو تلمامي كرا هورتا قفك بني آدنك أسيق الشخصي أهان أيا لغا ربا إنو هذا نمبريك وحيالها الشيك شيغايو مسو أسيق نفتركيس شيغايو taas haddaan meesha ku dhaafo aan u laabto odayaashii maanta hadlay horta odayaasha sharaf iyo wanaag ayay mudan yihiin xasan waa u caqli celiyeen si fiicanna waa ula hadleen wanaagna waa fareen waxayna u sheegeen ninkan meesha joogo oo la yidhaahdo dani shalayna ayaga keeneen haddana hadduu anficaynin inay iska bixi karaan hadduu anfacana uu joogaayo amuurtana ay tahay amuur ayagu u taallo ayna ahayn amuur ayaga la faro horta madaxweynaha xasan sheekh meeshaas mara uga dhacday markii dad 24 sano arrimahooda soo wateen 24 sano soo kufaayay soo kacayeen 24 maalmood ayay ku dumaysaa in la yiraahdo ayay waxay u arkeen wax qalad ah wayna tahay oo hada la dhihi maayo qalad maaha ala kulli xaal madaxweynaha jawaab anfacdo oo hadalkiisii jawaab oo wanaagsan ayaa la siiyay ani marka midaan rabo inaan kaga hadlo waxa waaye annaga waxaana la yiraahdaa mudulood sida idinka maxamuud Suleymaan neelo dhaho ayaa anaga mudulood noo la yiraahdaa waa runtiin annaga iyo idinka weligen iyo Allaheen wanaaga naga dhaxeeyay waan naga dhaxay doonaa weligiisna waa jiri doonaa aad iyo aad ayaan uga xunnahay ninka fikirka oo qabo iyo nidaamka oo ku shaqeeyo nidaam aan anaga ogolnahay maaha nidaam aan raali ka nahay maaha ee lasteeso annaga meeshaad idinka joogtiin meel ka sii xun ayaan taaganahay wax dan oo isku keen jira ma leh ninkan beeshaan waa ka dhashay waa nin abgaal ah mase mudulood ah kama saari karno laakiin ku talo ku ra'yi habiraatee maaha waa nin arrintiisa u qooshan tahay wax badan aan ognahay hadda ka horna aniga oo afka beesha mudulood inta badan ku hadlo horyaan u sheegay beesha daarood inay yihiin dad walaalaheen ah annaga inoo kala saarneen laakiin dadka aan sida badanaa wax la qaybsano oo wax la leenahay inay yihiin beesha ma jarteen ma qarsanin weligeena sheegi jirnay hadeerna waa qarsannahay inay jirto waxaan ka xunnahay ninkan hadda meesha madaxweynaha ka ah oo amooda suwo sidoo asiga rabo inuu u socdo rabo dadka aan ra'yi ku darsanin ra'yi dad aan ka qaadanin kuwa ka dhashay danka lahayn ay dayac yihiin waxaan rabnaa inaan u sheegno waxaan ognahay ilaahay ha u raxmado ninkii duqa magaalada ahaay ee hore ee dhintay ilaahay u raxmadee xasan abshir iyo rag la socdo kalka hore 2012 ayay u tageen ayagoo ugu tagay ayagoo rabo inay weydiistaan inuu siiyo maadaama beeshaan mudulood iyo beesha ma jeerteen ay ka dhaxayso macnaa wax wada qaybsi inay wax la siiyo oo wuxuu yiri ragga maalintaas wax la qaybsan jirteen iyo waqtigaas waa waqti laga yimid waqtigan maanta waxaas ma jiraan ayuu nin kale nakab ku yiri asna kama qeer kama dheefin oo dhibaato ka maray haddana dani oo la soo dagaalamay oo la og yahay wixii uu qabtay iyo wixii uu suubiyay iyo kursiga maanta xasan sheekh ku fadhiyo in uu wax badan ku leeyahay ay xaq ahayd inuu kala tashto ay xaq ahayd hadduu asiga oo kaga baqday inuu ku leeyahay ninkuu asiga raba inuu keensado inuu la diil garay ahayd oo birta ugu dhuftay hadeerna inuu cidiisi iyo asiga isdaba dhigo xasan xaq uma laha marka anaga fikradaas lama qabno waxa idin sheegaynaa
talada waa taladii aad idinka soo sheegteen annaga weligeen iyo allaheen waa isku jilneen aniga iyo dadkaas sideen iskugu jilnaanaynaa intaas ayaan rabaa inaan idin sheego wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu